أهلا وسهلا محمد كسر دو تلفزيون كيونيفرسال iyo barnaamijka Hirar Hargeysa aad iyo aad baad u mahadsantahay in barnaamijkan aad nagala soo qayb gasho maxamed wariyaal fara badan iyo siyaasiyiin fara badan baad codadkooda sameysay oo caan ku tahay goormaad bilowday markii ugu horeysay arinta والله تدبي شديت يعني وعيالة يعني باكدة السجار كان بعرقدة دبوق السعر يعني وحن كوب بلعبي نكين ورجلي محمود حسن واطي محمود حسن حاج عمر واطي عدوينا شيخ عبد النور الشيخ محمد إسحاق أيان عد كوب بلعبي دبتنا إذا ما لقى شمبورت النية توبر رنجلي واطي محمود حسن هذا بال عد كيسي وإحنا قم قشي إذا ما لقى شمبورت النية تويا شيخين يسي وضيان دقال عروس يقوها أنا عاصمة الجوز لا لا يمدد كما دبيس لما دعونا بنزل بجودان كاسي وقتك ونقف يدك صديق الله ترى يرجع سؤال شيخين مدحونا مرزق بيشوكوها يدقال مصر بدين تابوسني marka dabcan waa wariyay hore laanta af Soomaaliga BBC da Maxamed Xasan isaga kugu horreeyay marka qof aan codkiisa matasho qofka aan codkiisa matala isaga igu horreeyay waatay dadkii marka aad sidan oo kale ugu akhriday markii ugu horreysay ma yiraahdeen dawaa Maxamed Xasan halka soo taagay waa Maxamed Xasan baa la oran jiray dabatana ayaan waan kordhiyay واطي من نيروبي كاد جري ولا جري أحمد محمد نيروبي أحمد تاجر وايد بدك دعاية ما غير فربضني يحب دعايين جري من أيام بلعبي واطي أحمد تاجر نبغى دعوت كيس إنه مغشي إسلام سيد تجري يا وحلا شيء إني تمي دوكسيغا هو صدح هالكاسي أكينيا أكويا لا هالكاسي ولا شيء إني أو حكبرني شيء معلمين توحى شيئين إني halkaasi aw diideen balse lagu qancin kari waay aynay askuulka asare wax ka barato waa tahay wariyaasha kale codadkooda aad samayso iyaga way noo soo noqon doonaa bal hadda dhinaca siyaasiyiinta iyagana yaad ku bilowda siyaasiyiinta waxaan ka bilaabay yata siyaasiyiinta waddanka maanta daayir yeelakayn yaa waqtigii ololayaashii xisbiyada ayaan bilaabay inaan codkiisa keeno way waqtiga anigoo marxaladii siyaasadeed ee waddanka ku dhex galay xisbigii markaa kulmiye taageeray ku noqday madaxii wacyigelinta degmada gacan libaax ayaan bilaabay inaan madaxweynihii anoo iminka ka raali gelinaya maadaama siyaasad kulana dhex martay meel kasta oo jooga madaxweyne daahir riyaale waxaan leeyahay inuu saamaxno ayaan markaa bilaabay inaan codkiisii keeno way marka moobilada waddanka Soomaaliland oo dhan kala barb ku jira way ama Axmed Saciid iyo matalaya daahir yaal way Axmed Saciid iga wano soo noqon doona bal hadda daahir yaal wax naga maqashay daahir yaal la wareysanay madaxweyne Soomaaliland siyaasiyiintu waxay kugu eedeynayaan in aad Soomaaliland adigu qaska garinayso oo xidhay xarunta xisbiga kulmiye idinko ka baadhaya ilaa yaal وانا شيئين إن أنا هين لعد هاللاين حرمتو ده بلا محاكمة نات كل شيء هذا اسمه حكي كده ونبارينا زميلنا وعرفي سيران يوم إحناش وانا نباردونا وعلى العشر الدران ونقول تجينا ومد زميلنا إن مارك تاني إحنا لسه بجرتو إذا أنا كاق بالي أنا بجرتو وأنا شيء إن سيرايو هدي دوري يعني إن دورشوا إن حلو حلال هيجان حل جد هيجان أنا أقول لي كردي تيورما أنا جا قبتي تاني كلها قلت لي كردي أنا شيء يوم دريس ومال إن حسب كلمية إن حسب قص وديان وفي النورية وي ما تحوين أرنتاسي إن واحد قاعد يشي حسب كلمية أو تاجن إن ما تحوينه إن دورشوا عساق تبدو جيا oo hadii in waxay doorasho la qaban lahaa in kolba in guurtidu soo gudbinaya in hadii in ilaahay yiraahdo in dib loogu dhigo arintaas maxaa ka jira waxba kama jiraan doorashadii hore baan qabtay waxa lagu wasbay in doorashada dib u dhigo arintaas aan wadiyo ma aragtaanay qoolena qorqabasho biyo kuma qurquriso doorashadu waxay u baahan tahay caqli iyo xoog ma baahan siyaasan ku qanacay xisbiga waxaan ka warhayaa maxamed in siyaasiyiin Soomaaliyeed oo kale iyagana codadkooda aad samayso kuweeba kamid ah
waxaa kamid ah salaad cali jeelle oo muddo fara badan dee reer waqooyigu ma wareystaan dadka maskaxdooda wax kusoo dhacaan soomaalida marka tiraahdo qeybteena reer waqooyi wali waxba kama duubaan in badan oo siyaasiyiina qalbigeyga ka baxday laakiin salaad cali jeelle iyo inaan hayaan filayaa cabdillaahi yuusuf waata cabdillahi yuusuf aan ku horeyno waxaan idiin sheegahaya magaaladii muqdisho in lagu burqdaa baa loo baahan yahay ummadii soomaaliyeedna in laga xoreeyo fidmowlayaasha ayaa loo baahan yahay magaaladii muqdisho in la tagaayo wadnaha la guufaystaa baa loo baahan yahay dhinaca somalilandna waxaan leeyahay wadanka yare boorama kasoo duulay ee laascaanood qabsaday inuu boorama ku noqdaa baa fiicnayd annagu ninkii meeshaan haysa jiray ee ka horreeyeyna dagaal loola jiray saaxiib baanu ahayn oo waraaqay waxay yaalaan xafiiskiisa inuu baadho oo waraaqay uu ka eegaabaa wanaagsan waxaan u sheegahayaa somaliland inaan beelaha walaalaha ay wada degaan la isku dirin oo fidmo la dhex dhigin waatay wariyayaashii qaar kaloo kamid aynu kusoo noqon doonaa iyo dadka kale ee bulshada magaca kule kuwa codadkooda aada hayso laakiin bal hadda waxaad ka warantaa maxamed salaad cali jeelle oo kale isagu siduu hadlaa salaad cali jeelle oo kale wasiirka xogeenka gaashaandhigga ee soomaaliya oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhnay ayaa wuxuu sheegay arrintaasi ethoobiyan inay la socdaan inaanay jirin waana kan adeerow ciidan etoobiyaan aanu wadanaa ma jiraan ciidamadeenu dagaalka ay ku jiraan argagixis ay kula jiraan ciidamadeenuna waxay la dagaalamayaan argagixiso waaye ciidanka ethoobiyan wadanaana tababarayaal waaye oo dowladda soomaaliya xaq bay u leedahay ciddii ay keenayso salaad ma waxaad leedahay ciidanka etoobiya ee watadkaarayaasha iyo madaafiicdu waxa weeyaan ciidan tababarayaala hadday tababarayaal yihiin maxaa madaafiicda ku raray adeerow idinkaa sheegaya ciidanka etoobiya ee kaarayaasha wataa wax ka jiraa ma jiraan inaad meesha timaadaan baa wanaagsan ood idinku indhihiina ku aragtaan waxaan la dagaalamayna argagixiso waayo argagixisadana ciidanka iyaga cidda tababaraysa xaqay u leeyihin salaad ma waxaad leedahay ciidan wariyaal ingiriisaa yimi oo ad u diideen xeryaha militariga markaasoo nagana noo diidi maysaan haddii aanu dhimadno adeerow dowladda soomaaliya xaq bay u leedahay xeryahooda ciddii ay u diidayaan angolaashiya iyadoo laga haysan in ciidamo kamarad loola galo waad iska garanaysaano kaasuu sidaas oo kale u hadlaa salaad cali jeelle waa tay maxamed waxaan ka warhayaa in shariikadaha telefoonada ee hargeysa qaarkood aada fariimaha adigu u duubtay marka ayaad iska dhigaysa axmed maxamed waa tay halkan u ihaa naga raalli ahaw numberka aada garaacde waa dansan yahay ama wuxuu ka baxsan yahay goobta adeega saasoo kale weliga axmed maxamed ma la kulantay ama dadkaa kale siyaasiyiinta iyo wariyayaasha le aada codadkooda samaysay may goladan qaranka t v-ka qaranka mooyaane lamaan kulmi waa tay wariyayaasha maxamuud xasan baanu maqalnay waxaanu maqalnay oo kale axmed maxamed kuwa kaloo codkooda aada samaysaa ma jiraan ha way jiraan waay cabdullaahi xasan jaamac baa jiray cabdillahi xasan jaamac waa cabdillahi ruush waa tay madaxweynaha ruushia valadimir putin ayaa sheegay inuu dagaalka chechnya u sii wadayo madaxweynaha ruushia maruu ka hadlaya qalka kan america ruushia wuxuu sheegay inuu dagaalkaasi aanu joojinayn ilaa iyo muddada kama dambaysta ciidanka chechnya ay ka baxayaan buraleyda agorojini waa tay wariyayaal kugu adkaaday oo codkooda aada samayn kari weyda ma jiraan kolley waa badan waa tay kuwa kamid ah waxaa kamid ah cabdisalaan heriri oo nimanka la fadhiyo waa tay bal hadda isku day miyaad isku dayi kari weyday saarin ku hadlayo kale adiga iyo ninka cawka layda hay cawkan aada u saaxiibnayo isaga dee aan hay labadaa nin ma hayo laakiin yonis cali nuur waa tay yonis cali nuurna hadda waxaan hubaa qaar fara badan oo daawadayaasha kamid inay jeclaan lahay inay maqlaan ciidamada ruushanku diyaaradaha ay leeyihiin ee loo yaqaano sagaashan ayaa waxay dulmareen badda pacifica oo ay ku tababarayaan ciidamada maraykanku halkaasi oo diyaaradaha ay ka hor direen ay gaari waayeen xagga duulimaadka ee hawada sare waxaa la sheegay in ingiriisku diyaaradaha miraajka loo yaqaano ay ku direen halkaasi oo iyaguna ay gaari waayeen in ay diyaaradahaasi cirka xagga duulimaadka ay ku gaadhaan diyaaradahaasi ayay filayaan ingiriisku inay ku socdaan suuriya oo laga sheegsan yahay in hobka lagu yeeri ka haysato
maxamed mararka qaarkood asxaabtaada iyo markaad la kaftamaysaa maad la ciyaaraysa oo kale ee telefonaad kula hadlayso ma isaga dhigtaa dadka kale wariyaashii siyaasiyiinta maya wajal bay gelaysaa haya iskagama dhigo waxaan haddee bilay wariyaashaas aad isku dhacdaanoo dee hadaad qof kale iskaga dhigto inaad wajashaabay noqon waa tahay maxamed mataan xirsi maxamed siyaaro aad iyo aad baad umahadsantahay